deegaanka gargoore ee ka tirsan degmada Boon ee gobolka Salel ayaa laga hirgelinayaa mashruuc biyo qodis ah kaasi oo ay ugu deeqday dawladda Kuwait. munaasabad lagu soo dhaweynayay mashruucaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaankaasi duqa degmada Boon maayir ku xigeenka magaalada Boorama iyo bulshada qaybeega kale. waxaa ugu horeyntii madashaasi ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Boorama mudane muumin gadiid oo u mahad celiyay dawladda Kuwait ee ugu deeqday mashruucani iyo xukuumadda Somaliland. marka hore ilaahay baa mahad leh ina karsiiyay inaan maanta halkan isku imaano inagoo u damaashaadayna ama soo dhaweynayna furitaanka riigan. marka labaad waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dawladda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraayo iyo madaxweynaha Ismaaciil Saylici. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dawladda Kuwait ee nagu soo caawisay mashruucani min dhalka ah ee maanta u fadhino ee riigii horeeyay laga taagay maanta Galgoor. waxaan kaloo aad ugu hambalyeeynaa iyo mahadnaq u jeedinayaa beesha iyo degmada maamulka degmada Boon ee sida fiican hagarlaanta uga qayb qaatay hawshani sidii u furi lahayd ee maal iyo muruq iyo maskaxba isku biiriyay ee ka mira dhaliyay maanta hawshan u joogno. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay duqa degmada Boon wada baahnaa wahayo dadkuna ay dhibaataysnaayeen dadka dhulkan ku nool 30 kiiloomitir bay biyo dhinac walba uga jiraan. muddo dheer baa la daba socday inuu wax laga maarmo dhibaatada dadka haysaay ayaa ma taqaanaay si looga gudbi lahaa in badan baa la daba socday. waxaan xil weyn iska saarnay in aan ku guuleysano iyo duqaydii deegaankaasi. ilaahay baa mahadaale isagaana keeno dadaalka keenay. waxaan kaloo jirta oo meesha tani haybiyaheeda laga cabi jiray ahaayeen meel 30 kiiloomitir u jirta oo la yidhaaho xoorgeella oo dixda xalimaalo oo xagga hoosa dixda xariiradna waa la maxaan ku yidhi waxay ahayd iyadana waa loo arooraa gubankana waa loo arooraa oo meel dheeroo iyaguna 30 kiiloomitira. waxa weeye intiiba maanta waa laga maarmayaa haddii alla yidhaahdo haddii ilaahay yidhaaho waddada saaka la qoray 10 kiiloomitir weeyi waa buur shalaya maanta la qoray. waxa dadka sidaa u qoreenna waxa weeye nafta baahida u haysa haraadka ninna fi haysaa heeb badan ah 100 kiiloomitir waxay ku dhammayn lahayn 3 cisho. kol hadday 10 kiiloomitir ku dhammeeyeen shalay gelinkii dambe iyo saaka. waxaan kaloo idin sheegayaa nimcadani madaxeedii weeyi wayna soconaysaa. dadka ilaahay u keenayowna inaad hareeraha ka joogtiin baana loo baahan yahay. iyadoo ay badan tahay baahiyaha haysa dadka ku dhaqan deegaankaasi iyo guud ahaanba gobolada Awdal iyo Salel ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi waxay walaac ka muujiyeen fayadhowr la'aanta ka jirta deegaankaasi iyo sida ay ugu baahan yihiin in ay helaan kaabayaasha caafimaad. waxaan u baahanahay horeeya biyihii maanta shaqale ee aan ka gaadhin halka Ilaahay naga siiyay. waxaan u baahanahay dhakhtar caafimaad dad iyo duuyo ayaan u baahanahay. toggaasaan joognaa cid garoonkaasaan joognaa aan magaalo u dhaweyn ayaan u baahanahay walaal inaad la noogu caawiyo dhakhtar caafimaad dad iyo duuyo ayaan u baahanahay walaal. Khadar Maxamed Xasan, Salel News, magaalada Boorama.